kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka ee toddobaadkan. Soomaaliya ayaa markii ugu horraysay muddo 53 sannadood ah khamiistii loo doortay inay xubin ka noqoto 15 xubnood ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay. codayntii loo qaaday ayay Soomaaliya heshay 179 cod, sidaas ayayna uga mid noqotay golaha ammaanka laga bilaabo bisha Janaayo ee 2025. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hanaanka ama hanashada kursigan golaha ammaanka ee Soomaaliya ka muujiyay rajo qoto dheer, isagoo sheegay inay astaan u tahay isbeddel aad u weyn oo laga gaaray dadaalada diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo doorka ay ku leedahay masraxa caalamka. shacabka Soomaaliyeed ayaa sidoo kale ka falceliyay isla markaana taageero u muujiyay doorashada Soomaaliya ee kursiga golaha ammaanka. haddaba waxaa barnaamijka martida mikrofoonka ee maanta marti ku ah xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya Xamse Aadan Xaadow oo ka mid ahaa wafdigii dowladda Soomaaliya ee goobjooga ka ahaa doorashadan ka dhacday xarunta qaramada midoobay ee New York. Xamse, ku soo dhawaw VOA. waa dhawahay VOA-na aad iyo aad ayay u mahadsan tahay. adiga faaraxana waa kaaga mahadcelinayaa. waa gartay marka hore intaanan u gelin taariikhdii ay soo martay doorashadan, waxaa inooga sheekaysaa sida ahaa ama sida uu ekaa jawiga doorashadii maalintii Khamiistii. runtii wuxuu ahaa jawi dareen leh. runtii marka cod uu kaaga xiran yahay dowlado kale wax kastaad ka fili kartaa, laakiin rajo wanaagsan ayaan qabnay. rajadiina ilaahay waa nooga dhabeeyey. dadaal badan iyo xodxodasho badan iyo way ka socotay goobta. ka horna inta aanan goobta la imaana sidoo kale dowladaha qaarna waa loo tegayey, qaarna warqadaha loo qorayey. dadaalo xoog leh ayaa horey u socday. goobtana markaan soo gaarnay sidoo kale dadaalkii unbaa lasii labalaabay. jawigana sidaas ayuu ahaa. annaga keligeena ma aanan ahayn, dowladihii kale nala midka ahaa ee 4 dowladood aan 5 ku ahayn, iyagana sidaas oo kale ayay ahayd. si wanaagsanayna u dhacday. baaladka wuxuu ahaa baalad oo secret baalad, codka qarsoon. warqadaha ayaana loo qaybiyey, kadibna waa la guray, kadibna codadkii waa lasoo tiriyey. runtii markii lagu dhawaaqayna waxay noo ahayd farxad iyo reyn xoog leh oo runtii xamaasad iyo dhan kasta leh. waa gartay. waa wax weyn maaragtay in laga mid noqdo golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Soomaaliyana waxay ka mid tahay wadamada khibradda u leh maaragtay colaadaha iyo xasradaha, iyadoo muddo colaado kusoo jirta haddana kasoo gudubtay. marka cashar nuuca ayay dunidu ka baran kartaa ayaad isleedahay joogista golaha ammaanka ee Soomaaliya? faaraxow, labada dhinacba Soomaaliyana ka mid noqoshada xubinta aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka waxay u noqon doontaa fursad dahabi ah. waayo halkaas waa halka go-aanada ku saabsan masiiriga ee ku saabsan dowladda Soomaaliya lagu gaari jiray. oo ay ka mid tahay cunaqabatayntii xilliga dheer saarnayd ee laga qaaday, iyo nabadgelyada Soomaaliya, ciidamada jooga, iyo dhammaan ayaha Soomaaliya. masiirka rasmiga ah meelaha lagu go'aami jiray ayuu yahay golaha ammaanka. marka Soomaaliya inay qayb ka ahaato oo halka wax lagu go'aaminayo iyada ay qayb ka noqoto waa muhiimad xoog leh ayay u leedahay. waxaa sidoo kale muhiim ah iyadana in Soomaaliya dadweynaha iyo golaha ammaanka iyo qaramada midoobay intaba Soomaaliya ay ka faa'iido doonto oo Soomaaliya laga faa'iido doono. sababtu waxay tahay Soomaaliya waa dal khibrad u leh burbur dowladeed. waa dal khibrad u leh dagaalaha iyo xasaradaha iyo qaababka ay u dhacaan. waa dal khibrad xoog leh u leh kasoo kabashada iyo waxa loo yaqaano dulqaadka ama resiliency-ga, oo macnaha aanan quusanin, oo kabtay,
oo runtii haddana lasoo noqday in maxaa la jiri maanta uu ka mid noqdo fagaaraha caalamka meesha ugu awooda badan golaha ammaanka ah 15kaas dowladood adduunka taladiisa inta badan lagu gooyo in Soomaaliya dib ugu noqoto waa tusaale wanaagsan oo caalamka uu ka qayb qaadan karo sidoo kale waxaa muhiim ah oo underline lagu sameeyo hoosta laga xariiqa muhiim ay tahay in 179 dowladood oo caalamka ku yaala ay ku aaminaan oo ay kugu aaminaan masiirka dunida goobta looga talinayay lagu aamino codkaas dowladda Soomaaliya la siiya iyadana waa waxyaabaha muhiimka ah ee underscore-ka ama in hoosta laga xariiqa mudan marka waxaan leenahay Soomaaliya way ka faa'iidi doontaa sidoo kalena adduunku wuu ka faa'iidi doonaa Africa oo aan noo dooratay oo endorsement-igu ugu horeysay aan ka soo helnayna waxaan u noqon doonaa dadkii magacooda ku hadli lahaa oo masiirkooda ka hadli lahaa sidoo kale wadamada la daaldhacaya xasaradaha ama bilow ha noqdaano ama kuwa hore ugu dhex jira ha noqdaane iyagana waxaan u noqon doonaa maadaama annaga dalkeena uu hore usoo maray xasarado waxaan u noqon doonaa dad masiirkooda uga hadli karo kayskooda geey karo saas ayaan u noqon doonaa marka dhinac kastaba waxay ka tahay waa guul taariikhi ah waa gartay markaad fiirisid gudaha Soomaaliya si weyn ayaa looga soo dhaweeyay ka mid noqoshada Soomaaliya ee golaha ammaanka dhinaca caalamka sidee ayay aragtideedu ahayd maxaa ka hesheen oo fariimo ah faraxo sidaasi lamid ah sida gudaha looga soo dhaweeyay si lamid ah oo mug iyo miisaan leh ayaa tahniyadaha ay isku soo daba dhacayeen waxayba ka bilowdeen goobtii codbixinta markay dhamaatay ayaa safaf dhaadheer oo soo galay wasiirkeena wasiir Axmed Macalin Fiqi oo hogaaminayay wafdiga dowladda Soomaaliya ku matalayay shirkaas safaf aad u dhaadheer oo hambalyo ah oo qof kasta uu rabo inuu u hambalyeeyo sidoo kalena uu codsaday inuu la kulmo ballan uu ka samaysto oo si waxyaabaha masiiriga ay rabaan ay uga hadlaan dowladda Soomaaliya ama ay ugu dhaadhiciyaan sidaas la mid ah wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah saacado kasta iyo mar kasta waxaa ku soo dhacayo warqadaha hambalyada ah ama dowladda soo dirto ama ururada aan ka mid ka nahay sida African Union midowga Europe oo ay sida jaamacatul Arab tahniyadaha kala joogsi malahan runtii Soomaaliya dowlad badan ayaa hadda 5 dowladood ayaa lagu galay Soomaaliya waxay special case ku tahay dal runtii qaramada midoobay mission ay leedahay uu macnaha Soomaaliya dalka gudihiisa uu joogo oo runtii haddana intuu soo kabtay qayb ka noqday golaha ammaanka waa runtii wax oo aad loo bogaadiyo marka caalamka ama qaramada midoobay waxay arkaysaa case study ama wax ku dayasho mudan oo haddii dal xasarad uu galo oo la taakuleeyo oo dhibka laga soo saaro inuu waxtar u noqon karo tusaale fiican oo aad runtii mudan in la soo qaato taas ayaa waxay ka dhigaysay special case ama wax si gooni ah muhiimad loo siiyo marka waa tahniyadaha ilaa hadeer kala joogsi malahan saas ayuu waa mahadsan tahay kaasina waxa uu ahaa Xamse Aadan Xadow oo ah xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya oo u warramaya barnaamijka martida mikrofoonka ee 70 tan iyo kulantadeena dambe sida iyo nabadgelyo